qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada ganacsiyeedka degmadaasi Wajaale ayaa xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi iyo maamulka degmadaasi Wajaale ku bogaadiyay qorshihii dhawaan master plan-ka loogu sameeyay magaalada ganacsiyeedka degmadaasi Wajaale khaasatan toga weyn ee dhaxmara magaaladaasi Wajaale kaasi oo dhamaanba laga raray ganacsatadii taasoo dhawaanba laga raray dadkii iyagu ku ganacsanayay toga weyn ee dhaxmara degmadaasi Wajaale kaasi oo waqtiyada roobka dib weyn ay kala kulmi jireen dadka ku ganacsada toga weyn ee degmadaasi Wajaale haddaba qaar ka mid ah bulshadan oo la hadlay telefishinka caalamiga Somnews TV ayaa waxa kamid ah hadaladoodii badan bay ka qabteen degmada Togo Jaale oo ugu horeeyo top plan-ku imika waad aragtaa toga halka ay xuduuda labada wadan Itoobiya iyo Somaliland hawlo badan baa ka taagnaa way nadiifiyeen hawl fiican oo ay ka qabteen wayna ku ammaanayeen aad baan ugu mahadcelinaynaa hawlkarnimada ay muujiyeen iyo isbedelka ay ku muujiyeen bilicda magaalada degmada Togo Jaale oo ugu horeeyo top plan-ku waad garan kartaa imika magaalada top plan ba maray si fiican baana looga shaqeeyay top plan-ku wax badan uu fulidiyo isku socodka xaafadihii baabada imika aad ugu mahadnaqay marka waan soo dhaweynaynaa maamulka degmada Togo Jaale oo Haashim Maxamed Cabdi gudoomiye ku-xigeenkiisa Mursal Loox iyo xogayaha Mr. Soomaale aad baan soo dhaweynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo dhalinyarada Togo Jaale waxaan aad u taageerinaa sida wanaagsan oo loo sameeyay togii top plan-ka loo mariyay dadkii bariga hore deganaa ay u xidhayeen daadadkooda uga baqanaysay in magaalada daadku soo galo waxaan aad u hambalyeeynaa oo taageeraynaa sida top plan-ka magaalada loo mariyay haday gudo noqoto haday dibad noqoto haday togi noqoto waxaan ugu darnaa toga waxaad ka baqanaysay sida ciidii u soo xidheen inay magaalada daadku qaadad ka baqanaysay marka waxaan aad u soo dhaweynaynaa maamulka sida sharafta leh u sameeyay waxaan jecelahay in dadkaasi dib ugu soo noqonay si ay togaasi u hagaago imika wuxuu noqday biyihii caadi u maraya biyo mareenkii caadi u maraya wixii dhan caadi u wada marayaan top plan-kii si fiican baa loo hagaajiyay aad baan ugu faraxsanahay markii hore waxaad ka baqanaysay togi waa la wada xidhay waxaad ka baqanaysay inuu daad magaalada soo galo Togo Jaale top plan-kii wanaagsanaa ee ka sameeyay toga ay ku nadiifiyeen toga taasoo keentay bilicda magaalada hagaajisay Togo Jaale socodkii dadka ama waxa noqon doona ka imanaya daanta Itoobiya ama ka imanaya waxa weeyaan dhinaca Somaliland taga ay wanaajisay socodkii iyo ganacsiga taa waan ugu mahadcelinaynaa soo kale waxaan ugu mahadcelinayaa waxyaalaha ku tageen oo togo dadkii deganaa marka aan ku fidaa togo soo rumadaan keeni jiray dad badan inay hantidoodii ay ku waayaan ama dadka qaar bay dhibaato soo gaari jirtay taa maamulka degmada haday noqdaan madaxa booliska haday noqdaan maxaa gudoomiyaha degmada iyo waxa weeyaan mas'uuliyiinta kaleba waan ugu mahadcelinaynaa wax qabadkii laga fuliyay degmada Togo Jaale waa ku mahadsan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi si wanaagsan oo habsami leh ayuu u baneeyay hawl badan iyo waqti badanna way qaadatay dhamaan maamulka magaaladuna si wanaagsan buu uga hawl qaatay haday tahay gudoomiye ku-xigeen iyo haday tahay xogeeyada way ka hawl qaateen hadda waxaan leeyahay dadka shakhsiyaadka ah ee sida gaarka iyo wax u sheeganaya yaa la diidin horumarka iyo wax qabadka degmada inuu soo kordhaya anagoo ku hadlayna magaca dhalinyarada Togo Jaale waxaan soo dhaweynaynaa top plan-ka la mariyay toga waxaan maamulka ku leenahay inay halka ku ilaaliyaan top plan-ka yaanay ku soo noqon dadkii marka hore laga kiciyay taasoo wax qabad badan ama bilicdi magaalada kor Khadar Cabdi Cabdullaahi telefishinka caalamiga Somnews TV degmadaasi Wajaale